halka aad inaga daawanaysaan waa saxafi filim su'aal ah idiin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan leh aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Bollywood-ka filimada ka daadiya. Daawadeel barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa maalinta Valentine Day amaba jacaylka ee 14-ka bisha February ee haatan aynu ku jirno. Dalka Hindiya qaabkee ayaa looga dabaaldegi doonaa marka aynu soo qaadano shirkadda Bollywood-ka saameyn ma ku leedahay. Xafladan oo dunida haafaheeda laga xuso ayaa waxa ay tahay maalinta jacaylka. Haddaba dalkaasi Hindiya qowmiyadda haysata diinta Hinduuga ayaa u dabaaldega 14-ka bisha Febraayo iyaga oo ugu magac daray maalinta jacaylka. Haddaba maalintaasi waxay u yaqaanaan maalinta dabdamaame. Maalinta dabdamaame waxa ay isugu yimaadaan dhammaanba ardayda kollejyada dalkaasi dhigata geedka ay ugu magac dareen The Tree of Virgin geedkii bigrada. Ujeedka iyo dhaqanka hidaha ah ee ay leeyihiin dadkaasi Hindiya waa mid aysan ka tagin oo jiilba jiilka ka dambeeya u gudbiyo. Dhaqankaasina waxaa ka mid ah in ardada kollejyada dalkaasi Hindiya dhigata ay sanad walba actor ka mid ah actarada shirkadda Hindiya ay soo qaataan iyo atariisho sawiradoodana ay ku dhejiyaan geedkaas ay ugu magac dareen geedkii bigrada. Haddaba geedkaasi ayaa aada loo sharaxaa inta aysan xafladda dhicin ka hor, waxaana lagu dhejiyaa atariishada iyo actarka ay u xushaan in sanadkan ay yihiin labada ugu wanaagsan laguna xusi doono laguna maamuusi doono maalinta jacaylka adduunka ee 14-ka bisha Febraayo. Haddaba sanadkan waxaa loo xushay Ranveer Singh iyo Jacqueline Fernandez maadaama labadan actor ay u xusheen in ay yihiin actariintii sanadka. Sawiradooda ayaa lagu dhejiyay geedka. Waxaa kaloo lagu dhejinayaa buufino ay naqas ku soo shubeen, sidoo kale waxaa lagu dhejiyaa condom ay biyo ku shubeen. Xafladda markii ay bilaabato, ardada iyaga oo qaadaya damdamaame ayay socdaal ku maraan magaalada daafaheeda. Ugu dambeynna waxay isugu yimaadaan geedka halkaasi oo ay ku qabsadaan xafladda munaasabadda 14-ka bisha Febraayo amaba maalinta jacaylka ee Valentine Day. Haddaba xafladdaasi dhaqanka iyo soo jireenka ah ee dalka Hindiya laga xuso waxa ay socotoba xafladda marka ugu dambeysa ay soo gabagaboobayso waxa ay ku soo xiraan heesta ay ugu magac dareen Pyar Ka Dushman jacaylka cadowgiisa. Xafladdaasi ilaa waabarkii ayay soconaysaa. Ugu dambeynna markii ay soo xirmato xafladda Valentine Day, ardayda ka qayb qaadatay intii aan asxaab lahayn amaba lamaano aan lahayn 6 bilood ee sanadka haatan aynu ku jirno ugu soo horeysa ayay waxay ku talageli doonaan in ay samaystaan lamaane. Haddaba lamaanahaasi wiilka uu samaysan doono ama gabadha ay samaysan doonto waxa ay gabadha ugu talageli doontaa in sanadka dambe ee 2019 marka la gaaro xafladda Valentine Day waa 14-ka Febraayo 2019 xafladda nooca kan oo kale ah marka la qaban doono in habeenkaasi ay gabadha bigranimadeeda ku weyn doonto 14-ka bisha Febraayo ee inugu soo aadan. waa dhacdo la yaab leh iyo hidiya dhaqan aysan marnaba ka tagin. Haddaba actaradan Jacqueline Fernandez ayaa waxaa maqaalka titleka amaba ciwaanka loo sameeyey loogu magac daray Jacqueline Fernandez oo sabab u noqon doonto gabdho badan oo reer Hindiya in ay waayaan amaba ay lumiyaan bikradooda ama waxa loo yaqaan virgin. Haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay 14-ka bisha Febraayo iyo maalinta jacaylka adduunka qaabkee ayaa dalkaasi Hindiya qowmiyadaha ku nool qaar ka mid ah ay u xusaan. Intaas ayaan daawadayaal barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa. Barnaamijka waxaad ka daawanayseen Saxafi Films, waxaan idin daadinaya Caaqil Cabdi Faarax. daawadayaal ha moogaanina si aad barnaamijka ka baxa Saxafi Films aad u rukumataan inaad subscribe tirahdaan kadibna aad gambaleelka taabatay si barnaamijka markuu hawada soo galaba uu isla markaasba kuu soo dhaco. Fikirkaagana waxaad inoogu reebi kartaa qaybta commentiska ee isla Saxafi Films. Innagoo isku duuban oo baada Saxafi intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayna daawadayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.